iyadoo la wada ogsoon yahay in ay doorashooyinkii qaranka jamhuuriyadda Somaliland ee jagada madaxweynenimadu ay ka dhacayso jamhuuriyadda Somaliland bishan fooda inagu soo haysa ayaa waxaa TV-ga qaranka jamhuuriyadda Somaliland ee dalka Britain uu la dhex qaaday kamarada shacabka reer Somaliland ee ku dhaqan dalkan UK iyadoo halkaasina ay talooyin wax ku ool uga soo jeediyeen saddexda xisbi qaran xukuumadda iyo shacabka reer Somaliland oo ay u sheegeen in ay meel uga soo wada jeestaan nabadgelyada iyo ammaanka iyadoo halkaasina ay dadka ka hadlay aad ugu hanweynaayeen sida ay wax u socdaan ilaa imanka ayaa hadaladoodii waxa ka mid ahaa sida tan ogaadin iyo wargelin uga diraya jamhuuriyadda reer Somaliland shacabkeeda waxaan leeyahay doorasho xasaasiya oo maxay ahayd aad iyo aad u xasaasiya dalka ka socota maxay ahayd waxa kala bilaabantay diiwaangelin ololihii marka shacabku waxaan ku boorinayaa inay nabadgelyadooda ilaashadaan markay waxyaalahan oo kale ay dhacayaan doorashooyinka iyo ololuhu waa la isku dhexgelin karayaa maxay ahayd Somaliland cadow badan bay leedahay ku hareeraysan marka waxaan dadka ku boorinayaa inay nabadgelyada ilaashadaan ayaga oo ololeynaya dhinacna way nabadgelyada ka ilaashadaan waxa kale aan halkan aad iyo aad ayagana fariin uga dirayaa booliiska jamhuuriyadda qaranka Somaliland inaanay ku dhaxmilmin ay dadka ilaaliyaan nabadgelyadooda inay kontroolaan waxa lagu kala saaraya lagu garnaqayaa waa codka baalka lagu ridayo codkaas lagu garnaqayaa cadaaladdu halkaas ay ku jirtaa nidaamka aynu qaadanay baa sidaasa in nidaamka la maro in nabadgelyada la ilaaliyo waa ogtihiin dhibaatooyinka ka jira dunida iyo sida dadka loo gumaadayo ee dadka dunida ku nool loo leynayo haddaydan is ilaalin dawladdu awood kastoo ay saarto inay ilaaliso dadka waxa ka muhiimsan ilaalada shacabku oo ay is ilaalinayaan ee uu qof waliba qofka dhinac taagan uu la soconayo tallaabadiisa iyo wuxuu qabanayo si ay uga badbaadaan duruufaha waa ina nabadgelyadiina ilaalisaan waxaan dhalinyarada reer Somaliland aan halkan fariin uga fari lahaa doorashadu ma aha mid lagu kala tagayo mid qabiilaysan ma aha waxaynu wax ku noqon karnaa markaynu inagu si xalaal ah oo xor ah aynu wax u dooranno dhalinyarada waxaan farayaa eedaabta iyo akhlaaqda iyo anshaxa ay leedahay doorashadu inay waafajisaan inay idinka la isticmaalin reer idaa la isticmaalaa qabyaalada ka fogaataan waxaynu doonaynaa qaran qurux badan oo midhadhala waxaan leenahay waxaan maalmihii waxaynu ku jirnaa guusheenna maalmihii aynu adduunyada wax ka iibinaynay doorashadani waxay ka mid tahay waxyaalaha aynu adduunka ka iibinayno aynu ictiraafka ku raadinayno qaabkaynu wax u dhiganno iyo sidaynu wax u samaysannana waa la eegayaa adduunyadoo dhan baa inoo imanaysaa waxay doonayaan in dadkani nabadgelyada aynu ka iibinayno inaynu sii kordhinno inaynu u aragno xisbiyadu inay u tartamayaan si feera oo ay u tartamayaan si magaranaysaa equala qofna aanu u arkin in magaranaysaa ay ilaashadaan dalkooda inay nabadgelyada ilaaliyaan inay ilaaliyaan anshaxa inay ilaaliyaan inaan wax la muquulin inaan waxba xoog lagu raadin in had iyo jeer lagu xisaabtamo in dadkani ay ciddii ay jecel yihiin dooranayaan anigoo magacaygu yahay maxamed axmed xajaadan maxamed daahir kana mid ah xubnaha sare xisbiga kulmiye ee UK dhowaan sida ugu dhaqsaha badan lana socdaal ugu socda oo ka qayb geli doona ololaha inta hadhay kana gaari doona doorashadana insha Allah bismillaahir kariim ka mid ah madaxda ka qayb geli doonta waxaanu dadweynaha reer Somaliland guri kasta iyo goob kasta iyo geey kasta iyo geed kasta oo ay ku sugan yihiin inay nabadda ku ilaashadaan nabaddu waa waxa kaliya ee qiimaha inoo sameynaya saddexda xisbi waa saddex xisbi oo walaalo ah Soomaalidu waxay tahay wixii uu musha u dana ayaa ilmahana u dana anoo ka faa'iideysanaya fursadan aad nasiiseen Somaliland Television waxaan rabaa inaan laba eray ka idhaahdo galabta caawa doorashada soo socota haddii alla yidhaahdo Somaliland waxay jirtaa 27 sannadood waxaanu ku qaangaadhnay dimuqraadinimo iyo kala dambayn iyo ixtiraam waxaan leenahay ummadayada in aad sidaad u foodi jirteen ee quruxda badnayd ee sharafta lahayd ee adduunka oo dhan idinku daawan jiray ee dadka oo dhan ay islahayn goormaad gaari doontaan shacabka reer Somaliland ayaa la idinka sugayaa saasaynu inoogu dhacaysaa waa in aynu wanaagga nabadgelyadeenna wadajirkeenna iyo gacmo qabsigeenna iyo kalkacalkeenna aynu ilaashannaa sidii qolooyinkii ugu horreeyayba sheegeen
ninkii ilaahay u qoro ayaa horta kursiga imanaya. Aynaawi Cismaan Ducaale iyo Shaqale TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, London.